الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي ميل والباتوكتان وديقة داون إنسان وعين سلام وحين سلام يا سلام تسلانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan inta ku haystaa 3 kiilo oo basala, 7 xabo tuuna, xabad sanjabiila, 6 lugo oo digaaga shiishi iyo xawaajka aan la sheer gareynaya haday toole insha Allah jararkeyga waad ka helaysiin dibadda ugu noqotiin biin Ilaahay kariim. waa xawaajkii aan ugu talagalay suugada Itoobiyaanka u soo dhawaada jararkeyga maqsuud cooking insha Allah taala ila socdo marka basashaan jarjaraya insha Allah taala. bismillah. bismillahi الرحمن الرحيم. marka waa kana insha Allah waa isku soo noqonay ila socda. waa basashii aan soo jarjaray digsigan ku shubayaa. burtukey ka shidan tahay marka maanta kuukarka ma ahan maadaama ay waqti badan ay qaadanayso suugada Itoobiyaanka. ma ahan suugada waa laba nooc suuga, midna hilib baa lagu kariyaa midna digaag. tan digaagta ah way ka yara adag tahay sida tan loogu talagalay hilibka lagu kariyo insha Allah taala. ila socda marka basashada waan saaray biyo kuma darayo saliid kuma darayo way shiilmaysaa way milmaysaa. markay milanto oo ay dhamaato insha Allah taala yaanyana kuma karinayo kuma darayo. waxaan karinayaa basbaas Itoobiyaanki iyo shiishid iyo kulay wixii lagu carfi lahaa xawaasyadii maanta aan la sheer gareeyay. channelkayga waad ka helaysiin ila socda insha Allah taala. waa isku soo noqonaynaa. waa u jeedin basashii hadaa digsiga waa buuxay haddana way dhamaatay way milantay. soo ma jeedaan waxba kumaanan darin biyo kuma darin cusbo kuma darin keligeeda milantay. marka wax yar hadda qoyaan ku jiro. waxaan rabnaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo markay yara qallasho insha Allah inaan ku daro basbaas Itoobiyaanki baan ku darayaa. alaabihii kaloon gadaal aan ooga daranay insha Allah waan idin tusayaa biidhnillaahi kariim. marka daawasho wacan ila socda insha Allah taala. waa u jeedaan uu biyo gursaday hadda wuu qalalayaa. waxaan meeshan ku haystaa tumun iyo xoogaha oo basbaas ah. marka waa basbaas Itoobiyaan. basbaasku wuu badan yahay aad ama uu kulul yahay isdhihina. markuu karo uu calashan ama baryo ama uu karo kuleel ma lahan. maqaaxidaha waa ka cuntiin kuwa maqaaxidaha laga cuno walaa xawla waa kan iska baroobeen insha Allah taala. isku day inaad sameysiin. bismillaahi raxmaani raxiim. markuu xoogaa kan uu ku yara shiilmo ama aan ku yara qaleeyo kabacdi baan insha Allah taala ku darayaa saliida. marka ila socdo insha Allah taala. burtukey ka shidan tahay kuukar leeba raaxada naga qaadsan u taagneen maanta bulxaan ay isdahay gambar aa ku fariisatid waa daalabisa u taagneen istaag cunto lagu karinayna adduunkana ugu imaanay Soomaali gambar leeb iskaga fariisan jirnay insha Allah. ila socdo marka aan isku shiilayaa markaan saliid ku daraa waa isku soo noqonaynaa insha Allah. waa kana hadda ilaa 15 minutes buu ii saarnaa. basashii way dhamaatay wax basal hadda loogama jeedo. waa basbaaska iyo basashii bas wax kale oon ku daro Ilaahay abuurtay ma lahan. waa hadda waa u jeediin. marka hadda waxaan ku darsanaynaa ilaa 15 daqiiqo oo basbaaska kaligiis iyo basashii asaas ee iskugu kareysa ama iskugu shiilmaysa ama iskugu milmaysa. af Soomaaliga qofba siduu u yaqaano insha Allah taala. hadda waxaan ku darsanaynaa saliidii oo 2 bakeeri ah. oo bakeeri waa kana bakeeriga shaah aan ku cabno labadiisa ama saliid waa iska yareyn kartaa. suuga Itoobiyaanka saliiday jeceshaa waa loo badiyaa. marka insha Allah taala waa kaasa insha Allah taala. waa u jeedin saan filaayo ila socda. marka hawada idin soo marna hadda ila cunaysiin hadda insha Allah taala biidhnillaahi kariim. niyada ka cuna anaga hadda afka ka cuna idinka niyada ka cuna insha Allah. kulay maalin baa la kulmi doonaa hadii la nooli. 5 daqiiqo ama 3 daqiiqo oo kale markay saliidda iyada isku karto baan waxaan ku darsanayaa shiishidkii insha Allah taala iyo wixii qudaar kala. kaasa nyaanya miroorey wax la dhaho kuma darayo maxaa yeelay waa digaagkan ama waa dooro
laguma daro marka basbaaska shiishiidka iyo qudaarta kale bes baa loogu talagalay hilibka markuu yahay baa yaanyo lagu daraa waxaan idiin sheegayaa suugada san loo kariyey xataa haddaad fridge gelinin waxaa markhaati aan kaaga ahay oo hadduu xataa uu ka halaabo san hadda maanta u kari haddaad u kariso uu ka halaabo xataa 7 beri ana aad weydiinayso 7 beri qaado qoyan baad ka ilaalinaysaa saan ku dheh waa kana 5 daqiiqo ka bacdi baan isku soo laabanay waxaan isku soo shiilay waad u jeediin saliidii iyo basashii iyo basbaaskii hadda ay toole hadda waxaan ku darayaa shiishiidkii ila socdo marka xawaashidii iyo carafkiina wuu u dambeeyaa biidnillaahi kariim hadduu ilaahay ka raali noqdo bahalkan cunto kariskeen caadiga oo kale ma ahan si fiican baa iskaga bisleeyaa waa gasaca weyn ee 400 gram ah soo u jeediin baan filayaa marka insha Allah taala suuga oo maasha Allah ah baa ka soo bixaysan filayaa meesha sidii ilaahay ma yadhiin oo ka raali noqdo shiishiidka waan ku wada shay waxba kamaana reebin waad u jeediin insha Allah taala marka biyana laguma daro suugada kale ee hilibka ah baa biyo lagu daraa tan wax biyo ah aan ku darayo ama aan la wadaagayo malahan kulisa u jeedin wax biyo kumaanan darin waxaan ku darayo dhan waa idin la socodsiinayay insha Allah biyo laguma daro marka hadda waxa isku karayso shiishiidkii basashii iyo saliidii wax kale kumaanan darin hadda waxa u dhiman carafkii iyo digaagtii inaan ku daro ama dooradii insha Allah taala marka hadda waa kana shiishiidkii baan ku soo kariyay shiishiidkii baan ku soo kariyay hadda waa isku soo noqonay waa u jeediin shiishiidkii baan ilaa 5 daqiiqo ku soo kariyay wax kale kumaanan darin hadda waxaan ku darsanaynaa insha Allah taala digaagtii oo diyaar ah oo soo dhaqay waad u jeediin aan soo dhaqay liin iyo waxaan ku soo dhaqay biyo kulul iyo cusbo say u shiirin bismillaah 6 lugood marka waxaan raacinaynaa 6 lugood 6 xabo ukun ah oo aan biyo aan ku kariyay baan raacsiinaynaa marka insha Allah taala daaway ukunta idimaana qabsin afwan biyaan ku kariyay ukunta in wax kale maraq digaag ama kamsar caleen wax kale lagu daraayo malahan cusbadana waxaan ku daray oo kula tumay sanjabiisha iyo toonta ila socdo hadda waxaan ku darayaa sanjabiisha iyo toonta waa 7 xabo toonta ahayd iyo xabad sanjabiil oo roon mana weyna mana yara sanjabiishu marka insha Allah taala waraan idinkuugu sheegay suugada wax biyo ah oo ilaahay abuurtan ku daraayo malahan sanjabiish iyo toonta waan soo tumay hadda mashiin haysatid oo rabtid waad ku shiidi kartaa marka insha Allah taala daawashadina ka ilowina marka si fiican u daawada inaad karisaan isku daya insha Allah taala channelka sharekiisa ka hilmaamina biidnillaahi kariim kulli wixii awoodeyda oo naqaana idinkama hagranayo insha Allah marka hadda digaagta ama doorada ay karayso waxa ka dhiman kaliya xawaashkii cusbadana waan idin sheegay waxaan ku soo tumay kamsar toonta iyo sanjabiisha nin walba cusbada qiyaastiisa iyo sidoo rabo isaga qiyaasi kara taas kulay wax isu sheegaa maaha insha Allah laakiin maraq digaag iyo wax kale la wadaago malaha suugadaas insha Allah taala waa isku soo noqonaynaa hanoo yara digaagta insha Allah taala saliida daayan ku shubay way soo tufaysaa markay karto insha Allah taala kumaana badinin yaro qiyaas baan ku kariyay insha Allah ila socdo insha Allah waa kana waan isku soo noqonay way wada kartay digaagtii wixii oo dhan hadda waxaan ku darsanaynaa xawaashkii aan maanta idin la sheer gareeyay oo hal qaanda ah baan ku darsanaynaa marka insha Allah taala waxaan kaloo ku darsanaynaa sidoo yar oo ku carfiyo qofkii rabo ku darsan karaa qofkii rabo wuu iska dhaafi karaa marka insha Allah taala waa diyaar lixda xabo ukunta aan ku soo darayaa kulay insha Allah markaan soo diyaarinaya idin tusaaya ukunta biyaan ku soo kariyay hore idin kuugu sheegay insha Allah taala waan soo diyaarinayaa 2 daqiiqo camal saarnaana waan soo diyaarinaa waan isku soo noqonaynaa insha Allah taala la socdo marka insha Allah
markaas soo ujeedin suuga ishcala abaa kasoo baxdaan ku dheh taas anaa kaa hubo wax walwala ka qabin basbaaska xataa ma kululo weliba suugadan 7 biri waxaan kuu ballan qaadayaa 7 biri horna waa induusha 7 biri haray talinay sameeyeen haddaad ka ilaaliso qaado biyo leh laakiin ilaalintaas ayaan iga dardaaran insha allah tacaala waan isku soo noqonaa waa ujeediin waa soo diyaariyey waa canjeeradii cadeed ee calaashaan etoobiyaanka ahayd madow iyo cadaan bay leedahay maanta madowgii inaan kusoo diyaariyo way ii saamixi weyde insha allah maalmaha ka badan hadduu ilaahay ka raali noqdo lugihii waa kaasa oo digaaga ahaa xabad ukunan soo saaray iyo suugadii waan soo diyaariyey adilee ka sheekeyn kara hawada ka cun hawada aan kusoo marinaya insha allahu tacaala waa kaasa casho wanaagsan kusoo dhawaada meel walbaa joogtiin yaa la siiyahay mataqaana qof la jecel yahay leh ma ahan qof walba oo socdo ma ahan qof la jecel yahay ee siya etoobiyaanka marka intaan dhaqankooda aan soo arko dadka etoobiya tagaa yaqaano waa kaa biyo kumaanan darin waa basashii iyo wixii kule aan maanta idin tusay insha allahu tacaala waa kaasa intaas aan la sheer garaynayo maanta insha allah isku soo noqosho wacan kusoo dhawaada channelkayga maqsad cooking insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subscribe ha ka iloobina sheerka insha allah waxaad garan weydiin waxaad iga soo weydiin